هلا كيسان يا ماشي جبنيسا دبقة صيماها واحد جبنية وفولكانو هل مرقم قرح ضيق ينقرين دم التايوسنو قوب برتمها مجال برتن كذا ولما دزيان برام هي تزاري تصفطوان ayaa un hal waxa ka soo booday bahari ma hunuritaan yaallo haddana burqanaysa oo biyo soconaysa waana mid hadda aad jeedaa dhowr iyo 10 saac ay ugu dambeeyay muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in volkaanooyinkii iyo dhulgariirkii Itoobiya ka dhacay ee muuqaaladeena hore ay kula wadaagnay inay marba marka ka dambaysa sii xoogaysanayaan ayna ku fideen dhul hor leh oo magaalooyinkii bartankeedaba ay volkaanooyinku ay ka qarxayaan deegaanadii volkaanooyinka iyo sidoo kale dhulgariirkuba uu ka dhacay waxa ka mid ah deegaanka Axmaarada deegaanka Oromada iyo deegaanka Canfarta hadda waxa ugu daran deegaanka Canfarta oo daris la ah deegaanka Soomaalida dagaalada ay ka dhaxayeen mid kale Canfartu sanadihii la soo dhaafay xasuuq badan ayay ka geysatay Soomaalida degan dhinaca xadka Canfarta iyo deegaanka Soomaalidu uu wadaago oo Soomaalida degan ay halkaas ayay xasuuq baan u geysatay intii Soomaalidu iyadu ay isku maqnayd ay waxyaabo kale ku mashquulsanayd ururada iyo iyadu ay is-eriyanaysay deegaano badan oo Soomaalidu ay leedahay ayaa gacanta ugu jira Canfar ilaa iyo hadda oo waliba ay deegaamaysay oo dad Canfar ay dajisay balse hadda maalmihii la soo dhaafay halaag ayaa ku dhacay dad guraynta dadkeedii ayaa lagu mashquulsan yahay kolba meel hor leh ayay volkaana ka qarxaysaa meel hor leh ayuu dhulgariir ka dhacaya magaalooyinkii kala daran markii hore tuulooyinka ayay hayde hadda magaalooyinkii ayay ku fiday waa dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Canfarta deegaanka Axmaarada iyo waliba Oromada buuraha dhaqaaqay ee sidii biyo qulqulayay qulquleen carrada ku darsamay ee dhul siban noqday magaalooyin dhan oo xabaalmay sida hore bay kula wadaagay iyo ilaa hadda cabsi xoogan oo shacabka wali haysata deegaano badan oo laga cabsi qabo inay dhulgariirku uu ku fido ayaa dul istaagi doonaa hadwa alayno waxa qodobkeena ugu dambeeya ku dul istaagi doonaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ugu hambalyeeyay shacabkiisa Itoobiya guulaha waaweyn ee xukuumaddiisu ay gaadhay iyo sidoo kale helitaanka marinbiyood badeed oo shacabka Itoobiya uu helay halka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu baadigoob ugu jiro inuu helo warqadda Nobel Peace Prize oo uu ku doodayo waxaan dhameeyay xiisadii Itoobiya nagala dhaxaysay oo tanaasul baan ka sameeyay Abiy Ahmed oo u hambalyeeyay shacabkiisa ayaa yiri diyaaradda hawada maraysa xawaaraheeda dadka saaran ma dareemaan laakiin dadka kale ee dhulka hoostiisa jooga ama dhulka jooga ayaa dareemaya xawaaraha ay ku socoto sidaas la mid ah xisbiga barwaaqo xawaaraha hormarineed ee uu gaadhay iyo barwaaqada dalkeena iyo sidoo kale horumarka aan gaadhnay iyo kobaca dhaqaalaha waa mid aniga naftirkayda aan la yaabanahay iyo la fajacay isaga oo markaasi iskugu hambalyeynaya isaga naftigiisa xataa isku qancinaya in horumar weyn ay xukuumaddiisa gaarsiisay intii ay talada haysay waan dul istaagi doonaa hadalkaas oo baraha bulshada qabsaday soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina ugu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay dhulgariirka dalka Itoobiya waliba gaar ahaan deegaanka Canfarta iyo sidoo kale volkaanooyinkan intay qarxaan carradu ay biyo ololaya noqonayso dhibil qulqulaysa oo meeshay taabataba gubaysa ayaa sii badanaya oo waliba deegaano hor la ku sii fidaya deegaanada hadda ugu badan ee volkaanooyinkan oo hadal hay weyn dhaliyay ay ka qarxeen waa deegaanka Canfarta deegaanada kale Oromada iyo sidoo kale Axmaarada iyagu waa dhulgariir iyo buuro dhaqaaqay buurdan oo taagnayd oo geedihi dhirtu ay sidan isku hayso ayaa macal dhirteedii biyo waxay noqonaysaa carro qulqulaysa waliga biyo qulqulaya aragtay carro qulqulaysa maad aragtay buurdan oo intee qulqusho carro ah oo sidii webigi dirigle miyaad aragtay waa iraada Allah awoodda alla weeye meesha ay ku socoto iyo ujeedada laga leeyahay carrada looga dhigay buurtan dhan Allah garanaya oo dhaxgali mayno deegaanka Canfarta maalmahan waxa aad ugu soo badanayay volkaanooyin
muuqaallo horena waa kaan idinkula wadaagnay caradii oo intay fod u dhahdo oy shida waxa weeye ay karto sidii dheri karaya oo sida hadda soorta lagu yaqaano kale soomaalidu ay karsato midda hadda maaha dhinaca Kenya laga kariya ma taa fod ma dhahday hoosta bay shuu ka dhahaaye midii Soomaalidu ay karsan jirtay ee yara jilicsanayd intay fod dhaho abuurka ciso ayay qiiq sii daynaysaa iyo sidoo kale biyo qarmoon oo haddana meeshii saacado kadib webi qulqulaya unbayba noqonaysaa oo biyihiisana haddana aan loo dhawaan karin mar waa kulayl mar waa qarmoon oo waxaad moodaaba waxa meeshan ka socda qarmoonkeeda inuu wadnaha ku jarayo mar waxaa weeye waaba dhimbil daba oo kulayl tay dhaafto ayayba dhimbil daba noqonaysaa si kastaba volkaanooyinkaasi noocyada kala duwana ee deegaanka canfarta ka dilaacay ayaa hadal haynteedu ay taagneyd maalmihii lasoo dhaafay oo dunida inteeda badan ay hadal haysaa hay-adaha samafalka ama gargaarka iyo sidoo kale dowladda federaalka Ethiopia ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa sidii loo daadgurayn lahaa dadka deegaanadaasi ku sugan kaba dartay deegaano yar unbayba markii hore ka dilaacday hadda magaalooyinkii bay usoo dhaadhacday oo waxaa aada looga walaacsan yahay war dadkan canfarta degan oo dhan armay saamaysaa oo meel la geeyaba la waayaa sida muuqaalka hordhaca aad daawateen waa magaalo ka mid a magaalooyinka deegaanka canfarta oo bartamihii magaalada ayayba bahashay ka qaraxday baadiyaha lagu ogaa ee maalmihii lasoo dhaafay dadka baadiyaha laga soo daadguraynayay goobta ay ka qaraxday waa goob geeraj gadaashii ah waa goob gawaadhi badan ay iskugu imaadeen hal mar waxaa uun isqabsaday dhimbil daba oo hawada aaday oo haddana qulqulayso sidii biyihii u qulqulaysa gawaadhidii oo meeshii taagan nin walbana wuxuu ka orday gaadhigiisa iyo sidii uula caran lahaa u badbaadsan lahaa waa walaac hor leh ooba kasii daranba tii hore ee baadiyaha iyo tuulooyinka ka dhacaysay haddiiba magaaladii bartankeeda ay ka qarxayso waxaa shacabka usoo baxday meel la isku daynayo inaysan jirin shacabka Etoobiyaanka ee deegaanada hadda ay bahashu ka dhacday iyo sidoo kaleeto kusii fiditaantan iyo khuburada digniinaha ay soo saarayaan iyo weliba cabirka ay cabireen ee ay horey u sheegeen in bahashan ay sii badan kartay aysan soo reyn hoos u soo soconin markii la cabiro qalabyada lagu eega lagu cabiray waxaad moodaa shacabku hadda inay usoo caraari doonaan dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida weliba gaar ahaan hadda canfarta oo kale daadgurayna way bilowdo galbeedka gobolka City inay ku soo daadgurayso shacabkuna waxaad moodaa weliba galbeedka City bay inaan lagu aamin qabin maadaama canfarta uu dhow yahay walaa xoogan baa shacabka deegaanka naftirkeeda halka ka soo wajahdayo waxaa laga cabsi qabaa in canfartu ay ku soo jabto dhinaca deegaanka Soomaalida oo deegaanada hadda la isku dagaalamayay loogaba awood roonaado maadaama deegaanka population badan hadda soo galaan oo degaan ay adagtahay sidii dib loogu celin lahaa oo hadda intii xukuumadda awal arba ee deegaanka canfartu ay soo dejisay galbeedka gobolka City ayaaba dhibaato ku ahaa shacabka deegaanka Soomaalida ee galbeedka gobolka City degan si kastaba volkaanooyinkan iyo sidoo kale dhulkan uu qaranaya ee labada noqonaya ee tagu ka dhex jeexmayo iyo sidoo kale buuraha qulqulaya magaalooyinkan ciidu ay ku rogmanayso ee xabaalmayaba ee saddexda deegaan ee hore aan idinku soo sheegay waa deegaanka Axmaarada iyo deegaanka Oromada iyo deegaanka Canfarte ayaa weli sii badanaya oo marba marka ka dambaysa meel bay bahashu holo ka dhahaysaa oo ay dhulku uu ka go'ayaa ama ay volkaanadu ka soo qarxaysaa webiyadan qulqulaya ee biyaha kulaylka meedhana iyo waxa weeye dhulkan caradan intay dhalaashay sidii webigii iyadana u qulqulaysa dhirta jiidhaysa intay waxa weeye dhimbisha dabka ayaa aad iyo aad walaac ugu haya deegaanadaas aan horey idinku sheegnay iyo guud ahaan dalka Ethiopia dowladda federaalku waxay la dhacaysaa sidii laga yeeli lahaa sidii loo xakameyn lahaa oo hadii ma awood alle ayaa la xakameyn karaa meel ilaahay wax ka wado ugu talagalay yaa xakameyn kara ma dowladda xakameyn karta laakiin iyagu waxay isku dayayaan sidii loo xakameyn lahaa sidii laga yeeli lahaa rag soo bartay khuburo cadaan oo dadka waxa weeye diirka cada ayaa ka shaqeynayo leh waxbaan qabanaynaa wadan hebel baan ka soo shaqeynay waxaana dawaa wax ilaahay uu keenay dee dhul markii horeba sinaa ayaa webi laga dhex jeexay dhul sinaa ayay ka soo boodeen biyo oo webi noqday iyagana dhul sinaa ayaa intuu dhalaalay
ayaa wuxuu noqday webi qulqulaya oo waxa weeyaan wax kale ku tilmaama garan mahaye naarun aan dhihi karo sababtoo caradii oo dhan iyo geed oo dhan iyo wuxuu dhan intay isku dhalaaleen iyo dhagaxiiba ayay qulqulayaan iyada oo haddana dhimbil daba ka guduudan wax la xakameyn kara marka ma aha aad bayna Ethiopia iyo sidoo kale caalamku ay u hadalhayaan marxaladan cusub ee Ethiopia soo wajahday taasi waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho magaalooyinka ay ku fiday iyo sidoo kale xog walba oo ka soo kordho muqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ugu hambalyeeyay shacabkiisa Ethiopia guusha ay gaadhay xukuumaddiisa helitaanka marin biyood oo u helay oo muddo badan Ethiopia ay ku taamaysay Abiy Ahmed ayaa yiri hambalyo shacabkayda Ethiopia hadafkeydii waan ka midho dhaliyay ahaa helitaan maritaan biyood in Ethiopia ay hesho bad ay hesho muddo badan ayuu ra'iisul wasaaraha Ethiopia soo celcelinayay haddaan xataa anigu ku guuleysan waayo ilmahayda ayaa ku guuleysan doono hadafka inaan bad helno anigu maana bilaabin waa la iga horeeyay aniga inaan hirgeliyaan isku dayayaa haddaan hirgelin waayana ilmahayda ayaa hirgelin doona oo caruurta inagu aan dhalno ayaa hirgelin doona waa isku day wanaagsan marar badan buu soo bandhigay iyadoo weliba mararka qaar uu ku hanjabayay bad waan helaynaa sababtoo ah buu yidhi dowlado inaga yar oo yar ah ayaa inugu wareegsan buu yidhi oo baduna ay ku wareegsan tahay suurtagal maaha inaan inagoo 130 milyana bad la-aan ahaano dalal inaga haafkeena kasii yarna ay bado haystaan oo bado ay ku wareegsanaadaan haddaba hadafkii Abiy Ahmed wuxuu shacabkiisa ugu hambalyeeyay inay heleen anigu ma garan karo meesha laga heli doono iyo halka laga siiyey iyo hambalyadan iyo meesha uu ka helay iyo waxa ka dhalan doono iyo sida uu ku helay anigu ma garanayo ilaa iyo hadda kuma qanacsani hadalka Abiy Ahmed ee ah marin biyood baan helnay ilaa Ethiopia dhex taagan marin biyoodkeeda maamulanaysa dekadihii samaysanaysa aan aragno de waxa weeye mar rumaysan karno dowladda Soomaaliya xaggeedana maysan tilmaamin oo may dhihin marin biyoodka aan siinay waa halka iyo halka Ethiopia inta qaadan maysan sidii Muuse Biixi oo kale ma aysan cadaynin si kastaba hadalkan Abiy Ahmed ayaa saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada si weyn u haysta loona qaada dhigaya wargeysa waaweyn iyo sidoo kale warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalhaysa Abiy Ahmed markii uu ka hadlayay arinta wuxuu yiri barwaaqada iyo horumarka xukuumadaydu ay gaarsiisay anaaba la yaabay buu yiri isagii baa isku bogay anaaba la yaaban buu yiri inta aan dhaqaaqnay waxa weeye horumarka iyo barwaaqada iyo sida aan badda u helnay iyo waxa soo dhan horumarka dalkeena uu gaaray anaaba la yaabay wuxuu yiri fajci la yaabay ugu noqotay buu yiri waxa kale uu yiri oo uu soo hadal qabsaday ama uu ku soo hadal qabsaday diyaaradda hawada maraysa rakaabka saaran ma qiyaasi karayaan buu yiri xawaaraha ay ku socoto laakiin waxa qiyaasi karo arka buu yiri dadka dhulka joogo ee aan saarnayn taasi oo uu la jeedo horumarka aan ku dhaqaaqnay shacabkeenu way dareensan yihiin buu yiri oo shacabku way ogsoon yihiin buu yiri Abiy Ahmed shacabkiisu marka uu hambalyeynaya oo xukuumaddiisu waxa weeye leeyahay horumar baan gaarnay oo dawladda oo xisbiga barwaaqo horumar iyo baraara dalka iyo gaarsiinay inta anagu aan xilka haynay horay baan u dhaqaaqnay buu leeyahay oo wixiisu waxa weeye iyo xayisiisanaya oo bomboonsanaya halka Xasan Sheekh Maxamuudna oo isagu raadinayo warqad la yiraahdo Nobel Peace Prize oo uu leeyahay xiisadda Ethiopia nagala dhaxaysa shaatigaanada ay nagu qabsatay ayaan u tanaasulnay calool adayg iyo go'aan baan ka qaadanay xiisad dagaal taagneyd baan soo afjaray Nobel Peace Prize waa inaan helaa uu leeyahay oo ololeynaya isaga iyo guddiyo arrimaha dibadda uu xil saaray ay Nobel Peace Prize ka ay u raadinayaan oo muxuu ku raadsanayaa shaatigeedii baa la igu qabsaday oo waan siiyay Ethiopia siiyay bad bay doonaysay oo waan siiyay waan u ogolaaday weli meel uma istaagin laakiin waan u ogolaaday ciidankeeda waan ka reebay waxa weeye ciidanka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya bilaabay sanadkan ayaa ku soo daray dhammaan xiisadihii igala dhixay wadamada dhan ayaa waxa weeye dhameeyay Soomaali heshiisa dunida la heshiisan ka dhameeyay Soomaalina waa heshiis dunidana heshiis baan la nahay iyo waxaan jirin oo maago isagu isku urursaday ayuu madaxweynaheennii Soomaaliyeed ka shaqeynaya
وأيام درون أنت هذا لك آد بين وحاول أكل فوقيهن نين بدأ يبرق هذا الرادينية أو ولما شعب كيس أوها بليين يبدأ يبرق عن نيسو هلاي عصبه برواق صورنا أذكر إن أدوح كلا راديسو أو آتر هذه إن بطسي إثيوبيا ورقد نوبل بيس برايس يوغوسيا aad bay rayigaasi run ahaantii u kala fog yihiin waynu eegi doonaa saacadihii la soo dhaafay ummadda Soomaaliyeed inteeda badan siyaabo kala duwan ayay u qaada dhigaysay hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo sidoo kale xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qorshayaashooda qaabka lagu siin doono Itoobiya bad ama maribiyood ayaa iyada naftirkeeda calaamatu su'aal ay saaran tahay maadaama Soomaalida badaheeda iyo sidoo kale tabarigeedaba qabaa'ilo ay u kala degan yihiin ayna adag tahay in qabiil ama beel Soomaaliyeed inta iyadoo ay badii kaga fadhiday ama barigii ay ka lahayd in dawlad kale la siiyo waynu eegi doonaa wixii ka soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa anigoo Santaaga ayaa idin la socodsiinaya bartaada ka daawanaysaan waa Warsama Media